daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni video toddobaadkii baad kala socotaan shabakada xidigtanews.com waxaan idin soo jeedinaya aniga oo Khadar Warsame videoheena toddobaadka ayaanu ku soo qaadan doonaa video ku saabsan Soomaalida qaxootiga ee ku nool xeryaha qaxootiga dalka Kenya gaar ahaan xerada Dadaab ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan caalamka oo gaaraya 300 oo kun oo qof. Haddaba daawadayaal Soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga ayaa waxa ku haysataan daruuf adag oo dhinaca nolosha iyagoona helin cunto ku filan isla markaana haysan daryeel caafimaad oo haqabtira baahiyahooda isla markaana ma haystaan shaqo ay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda. Videohan ayay ka waramayaan xaaladda nololeed ku haysata xerooyinka qaxootiga. Soomaali badan ayaa ku nool xeryahaasi 20kii sano ee ugu dambeysay ay rabshaduhu ka jireen dalka Soomaaliya. Dad badan ayaa sidoo kale iyaguna xeryaha tagay dhowrkii sano ee ugu dambeeyay ay soo cusboonaadeen dagaalada dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. Haddaba daawadayaal ku soo dhawaada videoeni toddobaadka daawasho wacan. dadkiina meesha taagan fadlan naga taga halkaas taga wiilkaas yar oo fanaanad diiwanaysa yar ku qoranta jahaaf jacket koota haloo tago waa qofka boonaha haystaya qofkaana boonaha haysanin wuxuu tagayaa meeshaas ayuu tagayaa birta hoosteeda uu tagayaa annaga ayaa idin imaanayna kadibna waxaan sameeynaynaa fayla idin gelinayna. The daily arrival is between 300 to 400. aniga waxaan imiday shalayto waxaan ka imid xamar xabadii iyo wixii oo adkaysi weynay awlaadeydu waxna way jiraan waxna way iiga dhinteen waxna waa tana xabad waa hawbi waxa saa u gal lugta way jaban tahay marka saasaan ku nimid inta. The three camps in and around Dadaab, Ifo, Dagahle, Hagadera, were meant for 90,000 people initially when they were constructed early 1990. That is during the first influx of Somali refugees from Somalia. The camps have been now all there for the last 20 years. We're talking of over 300,000 now people living in these three camps. Most of the new arrivals include children. You'll find unaccompanied minors, persons with disabilities. أنا ود حجون مال دور أتدوس عيتها الماء أنا كود فدنا وقدين أن الماء عروت عبود أود جون وبنكون وصل دعي أسوي حقول دعم مشان قارت مركب نف بلا مجال بنبقى سكسر قرحي مارتي كهر أن نقطي كدع. لا قف معهنا وحني أن قادين ومال اللي جبسدي يلون نبسدي وحين ضمبنا والهن وحي كنت أشتين أو إيجارين بهيدا تدرس هبين لما بكاري الإسارة اسمعي سقال سامار لما لوجي. كيف وقفت مركب؟ أنت حركة حرين عادي ويكل جديد. مغارك المركب اللي جري أنت عرفت تجي على ساق فرت الماء عليه تبي عرفت على سوق هنا مركب فاصل سوق هنا. Some are even traumatized because their family members have all been killed. muddo adiga 2 bilood 3 bilood camal inta jooga xamaran ka soo qaxay dagaal dhibaato rafaad qaxad dhacay waan soo baxay ilmahayga intii iga soo horeeyay habooda haysta waa imaaday anoo iday ma joogto dhimatay abay Muqdisho jira daawa nolol geeri kuma ogi inta ahli ma jooga arqabi ma joogto wax wacay ma joogaan xaaladeyda marka ka shaqeynay waa oynaya هذا كبر مسلم أساك أساس هذا كشنا وحميس قوري ملي وحميس كار ومساقاتا كار وحكل ملي muddo waxaan joogaa maxay ahayd adiga 2 bilood iyo inta aan joogaa laakiin dhexda waxaan ku soo maqnaa bilaa dhexda ku soo jirnay rafaadaha iyo wax oo ma gaari la soo misalug baad gaari aan la socon gaariga xoogaa naga halaabay Soomaaliya dhibaato fara badan ayay ku sugan tahay aniga hadda kula hadlay odagayga meel aan ku sheego ma aqaan goor maqrib ah anagoo halkaas fadhino oo odagii uu fadhi ilmaheen isdhex joogtaa qori noola soo galo guriga dhar xabadii dhacda ilaa irida ay goysay odagii dariishadu ka boodo wuu cararay anigi iyo labadaydu cunuga meesha ku soo harnay anagoo joognaa subax walba nagula soo kalahay aawi ma aragteen war ma arkin geey qoriga baadkiisa geey سلع يسحرير كم هدو إلهي سبحانه وتعالى وكسي سئد وح أقول قدرت ملأ وأم إسلام وكاغا ساق حرنا متر ألابتين أدون كان وحيان دم وان كساق حنا ماشي أنا هذا إسكجي في النواكنا الحمد لله هل كنا ما أنت أدبا أقدروا فاسنا هاي سدحلان هاي أنيقا كار سدحلان هايستا لبع عنق أقوم بان هايستا إلهي سدو أوكي هاي جادر هاد أنكسي حدا ضد با إسكال هبينك حلقها مسيحاني كان شندرود قري وحان كسو بسنة ملأ
maxay ahayd halkaas hadda aan wax ku kari qorax baa hadda maskaxdii saa nooga haysata raashinka naguma filna waa qutulbahalki laakiin wax walba waxaa un ka qaalisan oo hadda maanta ilaahay subxaanahu watacaala aan ku mahadinaa keliya haddaa bannaankaa seexata inaysan cidna kula hadlaynin haa marka ilaahayga ammaankaa noo suga haddana isaga un baan haddana wax weydiisanaynaa inuu ilaahay ummaddaa wax nooga soo qaada aan hoos joogno miyuu rabaa inuu ku imaado markaas ma rabo wuxuu yidhi maxay ahayd walaalay maadaama hadday aan ku imaado aan haddana adigii oo rafaadsan oo qaxooti ee anna aan ku sii dul fariisto waxba aan kuu faa'iideynayn oo dhulka dhaqankiisa aan garanayn marka aniga nin waagi horeeta sarkaal oo ciidamo dawladeed iyo waxbaa iska ahaa sarkaalnimadii dawlad ma jirto waan wareersanahay shaqada halkan ma aqaano marka wuxuu dhahay intay si ka noqonaysa meeshaan iska joogayaan nolosheeda aan ka dhexsan adna allah kuu kaalmeeyo idha rajadaada maxay tahay inaad ku noqoto Soomaaliya mase xaaladaada hadda Soomaaliya maanta maadaama aan halkan aan hadda dan weyn ama yacni waxyaalo muhiim ah aan ku haysanin oo yacni haddaan xanuunsanahay si fiican qaabdaro wixii hataa gaalada ilaahay nooga keenay si un ay tahay yacni wax maanta yacni si un ay tahay oo raashinka ay nagu filneen yacni duruuf ay nagu haysato oo dal iyo dibad waxba noogala soo diraynin oo halkaa masaakiin ma iska fadhiya aan nahay haddana ilaa Soomaaliya ilaahay subxaanahu watacaala waxba lama aha nabad sugnaata ay noqoto moogi Soomaaliya niyo aan u hayo mal halkaasaa ii dhaanta no going back to Somalia halkaasaa ii dhaanta ya waxaan jibanayo qaxarbaano qabnaa guulowno gargaar waxaan jibanayo qaxarbaano qabnaa qajirowno gargaar qarankaygii dumay qabqablaa ka dambeeyay If you compare the standard of living here in the camp, you can categorize. Of course, we have the poor people here. These are the people who depend only the food ration given by the implementing humanitarian agencies. Hello, Ali. Sir Abu, waxaan soo dadkiina way daaleen kowde intaas ilaa saaka aarayaan wata markuu xasbeena waa aska galbadaan macnaha maxaa sameynaa bas okay waa Abu, I will make them to go all bas waa nagar Allah aan dhahaya marka saas baa insha Allah ku xalinaya marka waan wada xiriirina insha Allah hay Abu horma imaanayaan be ay bye okay bas galbadu bas hormana waa halaatuna la doonay awal أنا كنت waa tagaysa أنا soo dhameyn ay ma weyn أنا كنت xaray yaabo markii mana ya bari ama barda baas wal bixin noo hayo أنا soo hadla yaabo horta sidoo geedaha ma wada daba kacayaan muwaalintii guri ma noqona kaas guri ma seexin karo oo toban ilmo toban ma seexin karo gurigaas war waxna siya dadna siineen mac salaam xabadaan oo ka rooneeday نمرية So ourselves, what we consider to be rich is the one who has a small vehicle, like my friend Hassan, and if you own a hotel, you are a rich person. shaqadaydu waxa weeyaan magaalada dhexdeeda aan ka xamaashaa dadka ayaan qaadaa qof walba ruuxu soo wac meesha doonayaan geeyaa 400 ku tagay 200 ugu geey waxa laga yaabaa meesha 500 ku tagay ku 300 haystaa oo laba way sahaynin marka waxa loo baahan marka dulqaad aan sameeyno dadka hore iska caawino dadka si dhibaataysan oo xaamilada kala danganay dhaha waa 100 ka soo taay qaadno So we have the second class, the middle class people, the staff like myself, people who works for the agencies. So it's like $50 a month. I lost my father in Somalia when I came to the camp. I came with my mother and my sisters in the camp. That was 1991. I can say it is a paradise in the desert because I have been. This is where I grew myself. So of course I can say I'm happy because I am leaving the Dab and hopefully hoping to go for a resettlement to the third country, Australia. But in other words, I'm not happy because I'm going to a strange place, a new country, leaving my friends, my family members, and people I have been used to. That's all about me. Thanks all.